aan weli la garan karin oo bini aadamku uu isweydiinaya limaada khuliqna maxaa laynoo abuuray xaggaynu ka nimi xaggaynu ku soconnaa noloshani xaggay ku gebagaboobaysaa waa maxay risaalada aynu sidnaaye nolosha aynu u noolay maxaynu u joognaa halka kan maxay macnaynaysaa nolosheennu su'aasha tan dhan kastoo laga eegaba bashariyadu in badan bay isku dayday ama bini aadamku in badan buu isku dayay hadiye la'aan ama iyadoo aan la adeegsanaynin alle iyo rusushiisu wixii uu u soo dhiibay inay ka jawaabaan laakiin waa laga jawaabi kari waayo waxay gaadhay markaa xad qofka bini aadamkii uu qiimo beelo insaanku se markii xikmaddiisii la fahmi kari waayey wuxuu noqday waxaan qiimo samaynaynin ولذلك أيها أحد شعرائهم شعراء الجاهلية أما مبادئ سماء قاعدي أفهم متكمد وقبيبا وحليه جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت سأبقي صائرا إن شئت هذا ما أبيت كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري ولماذا لست أدري إلياب الماضي حلي وأنا من الدنيا دتان أنا وأنقرنا إن مال أنك إيمتورا وحما يسركيبوا لي أريجو تشوجا وضم بانر كيبوا لي عجها هيك كهص بحدا دبتنا وانسكر راعي وضدوا مسكهيا وانسك صعبوا لي وضدا قرتي مال يكون صعطة أما ما أنقرن با وانسك وضيا وضدنا صعد كده سيدي عن ماشانو إيمي يا وضدنا سيدي عنو أركي مدنا ما قرن يبوي isweydiinta waxa la buu yiri maxaan u garan waayay xataa iyada lafteeda aan garanayno ka jawaabi karin buu leeyahay noloshu haday hadafka weydo qiimo ma leh idan insaanka dhibta haysata waxa weeyaan waxa la garan la yahayba wuxuu qabto markaan soo koobana laba ihtimaal baa jira ihtimaal la qasdi baa loo abuuray oo qofkan bini aadamka shaqa loogu tala galay probability iyo probability kale oo labaad oo oranaya ma waa cabad iyo dheeldheel iyo waxba ma aha probability-ga cabadka ah aqliga iyo sharciiguba waa diidan إلهي وحليه سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم إلهي وحليه سبحانه وتعالى ما وحا أمه لينسان أنما خلقناكم عبطا ما إنان دنبا لين كلاهين قصدين أنو أبوك إنك دنبين دال يا عبث يا أجد الضرائن ليدين أبو ريميا أمه لينسان با إلهي سبحانه وتعالى وإن إذا الناس نقول دورين إلهي وحليه وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار إلهي وحليه وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا عركا يدلكا يوحان أدحيا كون كان أدح شوكتان وما أننا أبورين بها إلهي سبحانه وتعالى باطل يقصد در يعياير لما أبورين ذلك ذن الذين كفروا بها إلهي إنان وحبابا معنين وملها كوا لك قالوا بها إلهي سبحانه وتعالى فويل للذين كفروا من النار ورموحا ومالين سأنبا إلهي سبحانه وتعالى كوا إيماني عمل صالح لقاها لي إيا مفسدين للك فسادين إيانا نسكن نوع كردقينو آيات كلا إلهي وحليه وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين آيات كاس القرآن كإلهي وحكوت الماما يا سبحانه وتعالى عركا إيا دلكا إيا وحي دحياله وبن آدم كمديي إن اللعب يدال دال الله أبورين هذا عياير دوني نبا إلهي إليه لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بإلهي سبحانه وتعالى أكتا يدان مقسم يسان له وحل لغو دال داله يبدال دال لو ما أبورين إذن وحن لنا عبث لو ما أبورين بن آدمك أيحسب الإنسان أن يترك السدى بن آدمك وما وحوم علينا يين سيدا لقاقيت تغير
maya dheeldheel looma abuurin saa awgeed baa ilaahay subxaana wa tacaala rasuul inoo soo diray rusushaasi oo ah kuwa ina saxaya ee inoo sheegaya hadafka laynoo abuuro haddii lagu qaado maalan maanta oo cid intay ku qaado saxaare lama dega lagu geeyo meelaad u dhaqaaqda aanad garanayn se ciddii ku dhigtay ay kuu sheegto sababta aad meeshan lagu keenay iyo waxaad u baahan tahay haddaad diiddo tidhaahdo may waxba soo heli maysa saxmi maysa haddaad se instructionkiisa raacdo waxay u badan tahay inaad saxanto noloshan waa layna keenay laynagalama tashan raqma anfik baad ku timi cidi midabkaad noqon doonto kuma weydiin dhulkaad ku dhalan doonto kuma weydiin qabiilkaad ka tirsanaan doonto kuma weydiinin meeshaad joogi doonto kuma weydiinin aabbiyo hooyadaad yeelan doonto kuma weydiinin goortaad dhimanayso cidi ku weydiin mayso xaggaad u baxayso cidi ku weydiin mayso xabaashaad gelayso cidi ku weydiin mayso all this waa lagu keenay allihii ku abuuray ee ku keenay ayaa wuxuu ku leeyahay waxaan meeshan kuu keenay baan kuu sheegaya rusul baan kuu soo diraya rusushaasi waxay kaaga warramaysaa waxa meesha lagu keenay inaad ka qabato laqad arsalnaa nuuxan ilaa qawmih faqaala yaa qawmi icbudu allah maa lakum min ilaahin hayru innii akhaafu calaykum cadaaba yowmin cadiim ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala nebi nuux oo rasuulkii ugu horreeye la soo dira ah say mufasiriintu tilmaamaan waa loo soo diray dadka waxaanu ugu yeedhaya yaa qawmi icbudu allaha maa lakum min ilaahin hayru tolkaya waa la caabuda cid kale ilaah kale ama macbuud kale oo caabudaan ma lihidin ilaahay wuxuu leeyahy walaqad bacatnaa fi kulli ummatin rasuula an icbudu allaha wاjtanibu الطaaguut faminhum man hada allah ومنهم من حقت عليه الضلالة فصيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ummad kastoo dunida kor joogta rasuul baan u soo diray baa ilaahay leeyahay rasuulku muxuu waday an icbudu allaha wajtanibu الطaaguut ilaahay caabuda subxaana wa tacaala ka fogaadana kuwa qooqaya xadgudbay ee waxaanay xaq u lahayn raadcaynaya cibaada ilaahay baa xaq u leh subxaana wa tacaala cid kasta oo kale hunguraysa waa cid kibirtay oo qooqdo mansilo aanay lahayn isgaadhsiisay waxaa ilaahay tilmaamayaa ambiyadiisa iyo rususha iyo dadka fiicfiican inaanay mas'aladaas iyo malaa'igtiisu marnaba ka santaagayn lan yastankifa almasiixu an yakuuna cabdan lilah wala almalaa'ikatu almuqarabuun waman yastankif can cibaadaته wayastakbir fasayaxshuruhum ilayhi jamiica ciisa almasiix calayhi الsalaam kama santaagaya baa ilaahay yidhi inuu ilaahay addoonkiisa noqdo malaa'igta muqarabiintiina kama santaagayso inay alle addoommo u noqdaan ciddii ka santaagta ilaahay cibaadadiisa iyo addoonnimada ee iswaaweynaysa baa ilaahay yidhi ilaahay waa soo xaadirin doonaa waa la soo bacثil bacda almowt baa la keeni oo waa la xisaabin nebi moxamed baa ilahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala wacbud rabbaka xataa yaatiika alyaqiin idan waxay leenahay hadafka ama qasdiga ama xikmadda aynu halkan u joognaa waa in laynagu itixaamo ilaahay cibaadadiisa subxaana wa tacaala waxaa ceeba markaas inaynu hadafkii asalkaha ilowno oo wax kale ku mashquulno waxaa ceeba inaad garan weydo kelimatu tawxiid iyo waxay kaaga baahan tahay si aad injineer noqoto waxaa ceeba inaad salaadda sixi kari weydo si aad tabiib noqoto 17 sanawaat inaad jaamacada joogto adigoo cibaadadaadu ay saxmi kari laaday waxaa ceeba hadafkii aad u noolayd inaad garan weydo oo wax kale ka horraysiiso waxaa aqoon darro ah inay cibaadada ku weydaariso markaasi waxyaabo ah minor cases aan ahayn waxyaabo primary ama aan ahayn wixii rasmiga ahaa ee lagugu talagalay basharku marka wuxuu u kala qiimo badan yahay dunida jooga siduu ugu kala toosnaan badan yahay masaladaasi cibaadada ah masalada cibaadada ah siduu ugu kala toosnaan badan yahay ee u kala cibaado badan yahay ayuu u kala koreeya inna akramakum cinda allahi atqaakum bal nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ammaanaya ama wakhtiyadii aadka loo ammaanay waxaa ka mid ah oo mansilada sare uu joogay waxaa loogu yeedhayaa ilaahay ku tixgelinayaa lafdiga inuu addoon yahay alxamdu lilaahi aladii anzala calaa cabdihi alkitaaba walam yajcal lahu ciwaja
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلهي وحليه سبحانه وتعالى وحما هذا سكاله اللي هي الدون كيس كتابك كسودة شيء حبه هي قفك بني آدم كاهي إنه قرطة مركز سر وجودي محو هلك وجوه دوني محوك قبانيا markaad ogaato inaad geeriyoonayso laa maxaalata inay tahay kuwii kaa horreeyey madhe adna waad ka daba madhanaysaa shalayta adaa inan yar ahaa oo aabbo hooyo adeer in adeer qaraabo abti habar yar cid baad haysatay maantana adigunbaa dadka wuxuu ahay adiga cid wax ku ahi ma joogto aabba adeer awow madhe adaa booskii jooga xaggaad kuyuuga u haysataa geeraad kuyuugeeda haysataa waxaynu nahay bulsho dhammaanteed dil ku xukuman oo kuyugii dilka haysataa oo kuwii horena dhinteen adna aad daba socoto idan waxaad u baahan tahay fitrada ama fursada ama waqtiga yaraad haysato inaad cibaado kaga faa'iidaysato cibaada inaad kaga faa'iidaysato garatid waxaad halkan ku qabsato آخرين الله سبحانه وتعالى كأبال مرينيا نلش إن يكون جبابوبيس الجنة هي النار إن يكون جبابوبيس سيدا أوجد عدي جرم ويدا وحي الناشحي عكليتا كبها وحريها وهي كبت حكمة دي على قرنيا على قرنيا كبت بحال لو سمي هنا عقد إلى على صو واضح ذكر دورته عيدك حكمة بايلات لكن قفك الجرم وهي حكمة الله أبو ريبة يكفتو يسبي لقيمة إلى هذا وحي الله ترى قال يبقى بنيسا لكن نساكم مركو الجرم وهي وحي الله أبو ري واحد مودا إنه قيمة بيلي إنه اللمي سيدا وجيت هي إلهي سبحانه وتعالى وحي نصدر الرسل هي أنبياء إن الصحدة وطريقة سينو هانونسا طريقة أهل لتاكيش هي عبادة داسي ayaa waxay tahay sirta nolosha dhabta ah waxay tahay nolosha adduun waxa ay ku islaaxdo oo cibaadaadku nolosheenna adduunyaga islaaxiya nolosheenna aakhire dambana iyaga islaaxiya wax kasta oo cibaado ka baxsanina waa nolosha hore iyo tadambaba wixii fasaadinaya jahlina waxa ugu fool xun oo ugu weyn jahliga garan waaya wixii loo nooliyay jahliga garan waaya wixii loo nooliyay cibaadaadkaas ikhwati fi alcaqiida waa shay aan bidcada aqbalin ee itibaaca waa shay la raaco sidii uu alla u jideeyey loo raaco ilaahi subxaanahu wa tacaala isagaa garanaya wuxuu raalli ka yihi waxa uu jecel yahay waxa uu necab yahay waxa aanu rabin idan cibaado adigu aad samaysato iyadana looma baahna waxa quree la rabaa cibaadadii alla ku faray inaad samayso sida awgeed ayaa bidcu waa ziyaadaat cala alcibaada waa in dheeraadoo lagu darayo cibaadadii oo aan ka mid ahayn cibaadadu waa intii uu alla jideeyey isagaa garanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala muxuu ku farxaa muxuu ka raalliyey muxuu ka cadhoodaa muxuu necab yahay muxuu inaga rabaa waxaasoo dhanna wuxuu soo dhibay rusul sida oo inoo keenta cibaadaadkaasoo dhammaystiran hadday caqiidatay iyo hadday shareecatay iyo hadday akhlaaqiyaadtay iyo hadday wax kastoo nolosha u baahantay tahay sidii laynoogu jideeyey waa inaynu raacnaa idan cibaadada waxa ka asala kow itibaac baa ka asala raacis bidca iyo waxaa dheeraadka oo dhan laga tago shayga labaad ee ka asalkiina waxa weeyaan in ilaahay keligii loola jeedo ikhlaas ama ilaahay subxaanahu wa tacaala keligii in lagu caabudayo ayaa ah shayga labaad ee ka asala waxaan jeclahay inaan hadalka badana kala dhandhaafo oo ku soo koobo nusuusta qur-aanka aan idinku akhriyay inay cabaarun u fiirsataan
garataanna waxaynu joogno wallahu aclam billahi tawfiiq. Assalaamu calaykum.